السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي وإذن سلام وكينج ديفسي official. soo dhawaada idin leeyahay in qof kastoo muraadsan inuu ilo muraadkiisa usoo qaraar rajeyna insha Allah waxyaabo badan iga halaysanna samaysto waxba yar aan rabaa dila iraado fadlan channelkeena subscribe like share comment intaba hanaga ilaabina caawa xarabna xogaa inaan siyaasadda fiirino siyaasadda markaan fiirnayna hadii waxa waaye siyaasadda guud inta waa soo wada qaadanaynaa waxaan ka bilaabaynaa koonfur galbeed maadaama maamulkii dowladda maamulka hadda jiro halka sano looga daray maxay qabsadeen maxaan u hagaagay kolay wax saas u cad oo hagaagay oo toosan lama arkin sanadkan lagu daray waxaa laga rabay sanadkii in dee argagixisada laga xoreeyo koonfur galbeed ay ahayd tiina weli ma aragtay tallaabo looma qaadin dee waxa waaye kolay boog in hadda kadib loo qaadi doono laakiin siyaasad buuq kala soo dhexgalay reer koonfur galbeed iyagoo olgorba taag loo tabar la-aan ahayn haddana waxa waaye meel kale looga jiraa inay dee kacaan wax qabsadaan ama cadowgana isku dulqaadaan uma soo jeedaan iyagii shacabkii maamulka haddii loo fiiriyo waayo shacab oo dee maamulka awood u haayo ma aha maamulkii ma control karaan ma xukumi karaan siyaasiyiintoodana muqdisho iskaga baashaalayaan waxaas leeyahay marka inay kacaan ay wax qabsadaan aan rajeynayaa koley dee waxa waaye haddana sanadka looga darayaa intuu dee xasan sheekh maxamuud joogo waa un soconaysaa un baasha ma maleynayo inay agast ay doorasho qof iyo cod ka dhacayso koonfur galbeed ma idinkana saydan la tahay waayo wadadeeda lama hadda fiiri Baraawo mudaharaada ka socda malmahan maamulka lagu soo horjeedaa diinsoor hadda qabiiladii labada qabiil degnaa isku dagaalooyin gobolka boqol iska badaaba iyaga yaaba waxa cunaan iyo kan la asan meel u dhaqaaqaan wax inay talaabo qaadaan way rabaan laakiin looma rabo inay xiroodo marka koonfur galbeed xalkeeda meeshaas iska mar wax kale oo la sheegayo wax iska mkiin laakiin dhaqdhaqaaq iyo ma jiro kolay wixii hadda kale istiraatiiji maamulkan sanadkan waxa waaye adig 5 bilood oo horeysa dad wax qaban waayo inta kale loo maleynaa kulli hadda hal bil oo baxday tan kale haddaan fiirino dhanka guud ee federaalka iyo ama wax la isku yeestay waxaa la sheegay Itoobiya Somaliland ay bad kala saxiixdeen oo dadka dhan ku mudaharaadayaan saan waay horta wax walba waa siyaasad haddii barnaamijkaas u hirgalana dee waxa waaye aad ay u adag tahay sidii maaragtay Soomaali hadda inay isku imaado Itoobiya la dagaalanto waayo dhanka Somaliland waxa arkay dad taageersan xaqa u leenahay oo gooni Soomaalidan waxa waaye ku mudaharaadana in Muqdisho laga mudaharaado wax ay ka qabanayso malaha waxa wax qaban kara federaalka wasaaradda arrimaha dibadda madaxweynaha intaas wax qaban kara waa in safiirada la isku yeeraa arinta wax laga dhahaa teeda kale ani waxay la tahay mashquulkan badii dadka lagu mashquulinayo waxa waaye arin kale ku hosduugan waayo dowladda madaxweynaha heshiis badan uu soo galaa wadan badan heshiis la soo galaa cid Soomaali qaado ma laha maanta arkay ku xildhibaan ka dhahay imaaraadka heshiiska laga kan war heshiis madaxweynaha uu soo galay baarlamaanka uusan ogeyn badanaa jiro marka waxaan is leeyahay wax meesha ku duganaa waxay tahay in dadkan iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo shacabka lagu mashquuliyo arinta badan dee dowladana ma aragtay dee hoos ay gelayso in dastuurkii la ansixiyo oo dee meeshaas saas isku noqoto kadib haddii mar dastuurkaas baarlamaanka la geeyo qof iyo casaan waaye madaxweyne laho la ansixiyo kadib dhowdii badda waxa waaye ururka igad waxa waaye haddana Soomaali East African waxa waaye ku jirtaa waa laga noqonayaa waxa la heshiiskaas waa la kansaray waayo heshiiskaas
heshiis adag sidii kii Kenya iyo Soomaaliya ahaa oo dee oo toos ah ma waa heshiis maamul goboleed u galo waa dowlad lama gelin waa laga noqon karaa wax easy waa halkan sarkana laakiin waa la isku mashquulinayaa ma fahantin ani say aan ila tahay waa wixii cadna banaanku imaan doona hadduu ilaa yidhaahdo waxaa kaloo jiro tan kale aan rabo qodobka u dambeeya inaan ka hadlo waxay tahay maalin hore waxaa arkaya waraysi laga wareysanayo kanaalka Ha Noolaato ciidamada Eritrea laga keenaya la wareysanaya waxyaabo badan ay ka hadlayaan waxyaabo badan oo dee aan suurtagelin xataa qaar la aamini karin because inkastoo askarta la wada wareysanayay hal meel ay kasoo wada jeedaan talaacinta ay sheegayaan dee waa waxaas dhigi karaa 80% waa wax sar iraad aan ku lahayn meesha teeda kale qof askari ah oo la soo tababaray dalkiisa loo soo tababaray inuu barnaamij soo fadhiisto sarkaal uu yahay 5 sano tababar inuu barnaamij soo fadhiisto tababarkiisa ka sheekeenay soo tababartay qaabka waayo askariga waxaa loo baahan yahay inaad fikirto meeqa cadow waa leedahay cadow gudaha argagixisada waa leedahay dibadda waa leedahay cadow shakhsiyaanna waa lahaan karta because cadow argagixisada maanta hadday dhegeystaan wareysiga oo dee ay dhegeystaan waxaa ku hadlaysid qaabka usoo tababarata intaba macnaha fikrada laga qaadanaa waxaa waaye sirta ciidanka dhanaa fashilaysa kaasna ma dhihi karno askari dhaba oo dee wadani ah waa qofka askariga haddii wareysi la qaadayo tababar fiican aan soo qaadanay maasha Allah dee wixii kaloo qaladaad oo meesha ka dhacay waa la sheegi karaa cuntiyarada sida xiriirka intaas wax laakiin inaan ciidan badda la isoo tababar ciidanka badda Soomaaliya maalin hore ma arkaysan taliya markuu tagay waxa waaye konton xataa ma gaaraan ciidanka badda Soomaaliya la sheegay anagana bada u mudaharaadina waan leenahay badda ma baan amaankooda ma sugno intaas oo ciidan dhuulan leenahay inta laakiin ciidan bad milin hadii maanta ciidanka bad Soomaaliya xataa 5,000 gaarsiin lahayn inta xeebo Soomaaliya waa loo og yahay al-shabaab mar hore bad cirki dhulkaada fiiri biyo ka soo gal karaan intee ka imaan karaan marka wareysigaas waxyaabo badan aan ka qaldanaa mana loo baahnayn askartaas inay wixii tababarkooda ah ay dalkooda usoo barteen inay ka faaloodaan laakiin wixii meeshaas dhibaato ay kala soo kulmeen sida maaragtay tale erigta wax la'aanta cadaadiska intaas saan waay teeda kale waxaa ku cad wareysigooda nin qofka la wareysana wuxuu leeyahay aniga waxay ahayd inaan qadar aado World Cup aan waardi karo fir qofkaas hamigiis wuxuu ahaa inuu meeshaas tago World Cup kaas tago oo lacag ka soo shaqeysto hamigiis wuxuu yahay lacag laakiin haddii hamigaada ugu jiray maaragtay inaad dalkaaga u dagaalami karto askari oo noqotay meel alaala ku tababaranaysa maantana waxaa ogaay inta ciidana meesha joogtay lagu tababarayay tababar u wanaagsan inay soo qaateen wuxuu ku leeyahay Soomaali dhan aan leenahay haaf ma buu dhici kartaa ninka saacadaan inta wadankiisa laaynahay intuu joogay ma jirto Soomaali internet adduunka dhan social media way haystaan meel walba ku jiraan dal hadda ma aragtay lagu cuno qabateen kara ma aha ama kaliya talinimo lagu qabsan karo waayo waa wada social media kob hadday ka hadlo internetka soo iskuteeda iga maqan meel lagu tilmaamo marka wareysigaas Soomaalida waxaan sheegaa inaysan waxba aysan ka qaabanin waa wax bahdilaada aysan wax meesha yaalanaysan hal qodob ugu dambeeyo inaan sheego waxa waaye markii la laay Somaliland iyo Ethiopia waxa kala saxiixday heshiis badda ah lagu soo mudaaray hadda maanta deal oo Soomaaliya Ethiopia cadaawad hadii bilaawna hadda fiiri dhankaas Jubaland Puntland hadda fiirino iyo Somaliland nus Oroma joogto abado hadda nus way joogaan doolo Ethiopia dhanka xuduudku way ku jiraan koonfur galbeed iyaga joogo
ciidankooda afarta jiha ee Ethiopia naga soo gashay lug haddaa dhaqaajino meeshaan naga taakin karta laakiin istaraatiiji siyaasadeed haddii la isticmaalo dagaalkaasna waa la joojin karaa baddaasna waxaa waa heshiiska waa la kansali karaa ama heshiis kaloo toosan oo dee dhiil wadan walba haddaa heshiis la gelisa East Africa haddaa ku jirtid wadankan heshiis alexis kan heshiis inaa labadiina wax aa kala faa'iidaan marka ala baahangaad waxa arkay Caldeero waxa leeyahay soo hanjabay Somaliland kan waa inta Caldeero warkiisa Somaliland wax kama tari karo waxa Ethiopia ka tari karo Ethiopia dad wax ka qabanay maanta asaga ka dhumanay gaarigooda Ethiopian soo hadda meesha jooga ka carraan marka wax lagu faanana ma ahayn shabaab Somaliland soo gudbisay marka shacabka Somaliland waxa rajeenaa inaysan aqbalin wax ay maamulkaas la sameeyay qalad waayo heshiis 5 sano waa intaas laakiin heshiis 50 sano waa adana 20 kilomitir intaas adan ciidan laga sameeyay ilaa intee magaalay qabsan karaan marka Ethiopia ay degaan waa Ethiopianka intaan jigjiga soo bilaa ilaa intaas dhan waxa waaye waxirana wada 200 kilomitir in xiranta laga yaabo oo lama soo mari karo lahayn magaalooyinkaas dhan badii waxa waaye marka siyaasadda maalmahaas intaas waaye warar qaarna waa siyaasad in laga fiirsado dhinac u socdaan dhinac kale qadiid inay ku qaado way fiican tahay laakiin qadiidaada marka qadiida sameynaysid waxa loo baahan inaad fiirisid qodobka meesha wax ka soo dhaxjiri karo qadiidan ilaa intee xadda leegta ilaa intee soo kartaa maxaa hadii mid adag ma sidii Kenya camal uma adkatan waa Kenya badeeda waxa saxiix federaal laakiin tamaam goboleed aan la aqoonsanin hatta waxa waa heshiis maanta Ethiopia ay ku doodi karto maxkamad ku istaagi taxta ma qoos marka anagoon qadiideena aanan ogolaanin badan qofka la siiyo aan indhaha ka fiirinaynin laakiin meesha saxan aan eegayno insha Allah ayana barnaamijkeena yaraa intaas oo noogu kooban yahay waxaan leeyahay mawli kulanta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.